kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa noogu martay xogayihii hore ee xisbiga mucaaradka Cabdilaahi Warcade ee xilka laga qaaday ee xisbiga wadani wahagaag gudoomiye waxa la leeyahay bal waxa nooga warantaa arrintiina horta halka ay marayso horta wariyay ku ceeli hadalkaad aniga xogeeyaha iga qaaday xilka maada iga qaaday sidii guddi ku ceeli sidii guddi si sax ah u dhay waxba yiraahdeen waxbaan idhi sida haydu dhay sida iyo ku yiraahdeen aduguna sideed u oranaysaa anigu sidaan u oranayo warbaahinta tooda ka dhageystay tayda maxaad u maqlay waayahay sideed adigu tilmarka xogay waa tooda waxay yiraahdeen iyo waxay yiraahdeen ugu sheeg xilka laga qaaday adeerka laga qaaday xilkii ay ka qaadeen laakiin adigu maxaad leedahay anigu waxa leeyahay waxa aad sheegaysaa ma aha wax warbaahinta iyo ummadda midna tan oo adigana dan ku ah waxa dan ku ah waxa jiray inaad sheegto anagana dan oo waxa weeye niman buu u yeeray oo yiri fulin baan loo waan fadhiisanay meeshuna waa xisbi maqaaxi isagu leeyahay ma waxa weeyaan sharcigu wuxuu sheegayaa halkii lagu doortay baa lagu doortay halkii lagu doortay baa laga qaaday shirweyna lagu doortay shirweyna laga qaaday waxa xaq u leedahay inaad tiraad sidoo yiri ciro xilkii ka qaaday sidoo yiri warcadana u diiday waayahay sidoo hadalka dambe raacno sidoo xogayuhu eraygiisa dambe u yiri iyakuna sidoo hore u yiraahdeen marka ilaa inta arrintu ay kala cadaanayso wahagaag xogaye waxaan ku kala ku weydiin lahaa bal waxa ka warantaa arrintu halka ay marayso arrintii arrintu waxay maraysaa wixii uu yeelayay ciro uu yeelay isagu dantiisa uu arkay ana waxa yeelayo hadaa sharciga raacayo maxkamadda tagayeen way banaanta hadaan anigu leeyahay nabadgelyo way banaanta laakiin arrinta wadiga warsuusa wahagaag xogaye waxyaabihii matalan ugu soo eedayo waxa kamid ahaa xisbigu siday sheegayeen inaad noqotay afhayeenkii dawladda isla markaana mabda ahaan waxyaabo badan oo xisbiga aad ka soo horjeestay sidii dekada marka arrintaasi bal ka waran maxaan afhayeenkii dawladda ku noqday way sheegeen ummadda u sheeg waxay yiraahdeen wuxuu difaacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo noqday sida uu dhintay say weydii adiga af jooga looma adeegay adiga oranaya in marka ii sheeg okay ku sheegay loogaas waxa ninkaas wuxuu weeyday horta uu xisbiga ciidan ka cabanaya ma jiro ciidan la ciidan biiga gashay ma jiro wadad walaaladaya wadada soo wada shaqeynay wadadan abaal u hayo wadad aan aad iyo aad ugu mahadinay shaqada fiican soo wado waxay weeydeeyeen oo ku saxaya waxay yiraahdeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wakiil soo waray khayr wakiil Soomaaliland ma hadal jira wadal ka tirsan Soomaaliya dekada berberina anaga bixin karna dalgashooga anaga bixin kara ma tashan karaan waxba ma qabsan karaan wakiistayd anuu ka jawaabo waxaan idhi khayrow wadriyoonaysaa dalkani waa dal jira Soomaaliland baa la yiraahdaa waxaanu jeclayn dadka Soomaaliyeed walaalana inuu si walaalnimo ah u wada noolaano jaar fiican noqono sida aan Djibouti iyo Ethiopia aanu noqono ayaan ugu jeclayn maanta aanu jeclay hadaa diideen ku yariyo ku weyn isku raacsantiin inaan waxba ahayn hadaa naga xishoon weydeen waa naga baqi doonto horta intaas ahayd BB World iyo dekada berberana anaga gudbi anaga xaq u leh madaxdayada iyo golayaasheeda ka taliyay waanu siin doonaa kuwa kalena waanu siinayna adiga waxba ka weydiinayno waana sharci wara la baaskiray haddana waa leeyahay ummadii wada maqlaysa Soomaaliya Soomaaliland